Khalid Jilani oo ka mid ah bahda ciyaaraha Somaliland ayaa munaasabad sagootin oo casho sharaf ahayd oo loo qabtay kabtankii hore kooxda dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa Maxamed Khadar Oday ka sheegay in aan la qaban tartamo joogto ah isagoo markaasi hadalka goobta uu ka jeedinayo uu ku sugnaa xogayaha xiriirka kubadda cagta Somaliland Samatar Maxamed Cabdilaahi. ugu horeyn aynu wada daawano hadalkii uu ka jeediyay Khalid Jilani munaasabadda sagootinta ahayd isla markaana fariin u ahayd wasaaradda ciyaaraha Somaliland. maanta wadanka waad aragtaano ciyaaro fara badan la idima qabto Samatar way joogaan waxa oran lahaa war horyaaladii la soo celiyo si dadkan ay uga faa'iideeyaan intay waqti haystaan oo isku soo saaraan horyaaladii hala badiyo xasan waraab cadaan waliba la taliyaha waxayda wasiirkan si gaar ah ugu fari lahaa tartanada hala joogteeyo oo qaar qorshaysan ha noqdaan. kadib markii uu Khalid Jilani sidaas uu soo jeediyay ayaa waxaa mikrofoonka qaatay oo ka jawaabay isla markaana shaaciyay in tartan la qaban doono xogayaha xiriirka kubadda cagta Somaliland waa Samatar Maxamed Cabdilaahi waxaanu yiri waxaan ku soo noqonayaa Khalid oo xaq ka dhawaajiyay in tartamo la qabto. Khalid hadalkiisa oo soo dhaweynaya halkan hadii aan ka sheego xiriirka kubadda cagta Somaliland qorshaha ugu weyn ee imika u yaala insha Allah January waxa weeyaan in Somaliland National League la qabto markii ugu horeysay horyaalka naadiyada heerka koowaad ee dalka. haddaba naadiyada ka qayb gali doona tartankaasi iyo waliba fariinta uu dirayo kooxahaasi ayaa mar kale waxa uu yiri xogayaha Samatar Maxamed Cabdilaahi xogayaha xiriirka kubadda cagta Somaliland sidatan waxa ka qayb galaya guud ahaanba naadiyada ka dhisan Somaliland hadday noqoto caasimadda iyo gobolada waxaan doonaynaa in naadiyadu ay doorkooda ka qaataan tusaale ahaan naadiyadu waxa u safri doonaan gobolada kale maanta waxa weeyaan xaaladdu ugu fiicneed haddaynu tartanka horyaalka qabanno waxaa muujisay rajo badan iyo ifaalo badan oo la qabay marka Khalid waa rag aan doonay inuu gacan nala qayb qaato tartanka National League waxa lagu qabanayaa wada tashi iyo in gacmaha la isqabsado. Axmed Taya Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa.